السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجلدان maanta waxaan rabnaa inaan kusoo qaato arrimo aad u muhiim u ah. waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed oo ramadaanka. ilaahay khayrkeeda ana soo aadiyo. dad badanaa waxay ay u maleeyaan in maadaama bisha barakeysan lagu jiro akhriska qur-aanka iyo xadiidta in la badiyo waa run. waxaa kaloo meesha jirta in khayrka la isku sheego oo wixii xal ah la keenana waxay ka mid tahay waxyaabaha fiican oo loo baahan yahay bishaan in la wadaago. maxaa bishaan waxaa mamnuuca waxyaaba keenaya shar, waxaa keenaya dhibaato, waqti dhumis, ama laakiin in waxyaabihii xaqa ah aan isu faa'iideyno waxay ka mid tahay waxyaabaha loo baahan yahay inaan badino. marka caawa waxaan rabaa hore waxaan uga soo hadlay arrimaha dhibaatooyinka dhalinyarada wadamadan Yurub haysta iyo Mareykan iyo meel walba. hore waxaan uga soo hadalnay isdhexgalka Soomaalida iyo dadka kale iyo arrimo badan oo dhibaato leh. marka maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimo dhibaatooyinkii aan soo sheego dhan looga bixi karo, ama dhib kasta oo hadda jira waxyaabo oo sabab ah. taasna waxay tahay markii dowladdii dhexe ay meesha ka baxday, ama marka inta aan ku jirno anarkii ama dowlad la-aan ama dowlad xumo. taa ayaa ugu wacan sida ugu fiicno looga bixi karo ayaan rabaa inaan isla eegno si aan suula fahamno. waxaa muhiima in maaragtay macnaha dowlad si toosa inaan u fahamno, kadibna inaan ogaano in waxyaabaha hadda aan ka hadli doono ma aha keliya dowladda maanta jirta ama 4 sano soo socoto dowladda imaan doonto. waxaan ka hadlaya waxaa waaye si haddii loo baahan yahay mustaqbalka in la helo generation leh dowlad iyo shacab wada shaqeyn kara, horumar sida wadamada aan joogno oo kale, stability leh oo kala dambeyn leh, sharciga raacaya. waxaa loo baahan yahay macnaha in la fahmo dowlad waxay tahay. marka hore waxaan rabaa inaan sheego Soomaaliya waxay ka dhacay 1989 ilaa iyo hadda anarkiga aan ku jirno. dowladaha oo maaragtay badanoo hadda soo baxay, dagaal eheleedkii ka dhacay, naceebkan soo batay, waxyaabahaasoo dhan ma aha wax la dhihi karo Soomaaliya u gaar tahay ama waxaa ugu wacan doqonnimada shacabka. ma aha, waa wax yacni beel kasta ama adduunka waddan walba ama shacab kasta ku dhici kara haddii ay timaado xaaladaha Soomaaliya. waxyaabaha keenay waa wax formula adduunka u degsan. haddii meesha ay ka baxdo ama dhibaatadaas noocaas ay timaado ay imaan karto. maxay tahay marka taas? bini aadanka oo dhan waxaanu nahay dad sida xaywaan caqli leh. xayawaanku wuxuu u baahan yahay wax uu cuno, wuxuu abo. bini aadankana wuxuu u baahan yahay wax uu cuno marka hore, wax uu abo, inuu maaragtay dhergo. haddii kale gaajada hadday socoto waxaad gaaraysaa heer aad furka tuurto. marka ko waxaad u baahan tahay in aad si aad u noolaato waa inaad qaadataa energy oo wanaagsan. tan labaadna waxyaaba asaasi ah oo bini aadanku u baahan yahay ayaa jira. waxyaabahiina haddii ay ciriiri galaan waxaa imaanaya shacabkii iyo dowladda inay iska hor yimaadaan. taa waxay ku dhici kartaa wadamada ama shacabka adduunyada maanta lagu tiriyo wadamada ugu horumarsan sida Mareykan iyo Yurub. way ka dhacday hadda ka hor, wayna ka dhacaysaa. maxaa yeele haddii ay timaado dhibaatooyin maaragtay gudaha oo shacabkii ay waayaan, batroolka uu qaali noqdo, haddii ascaarta ay kor u kacdo, shacabkii inay banaankii ay usoo baxaan oo mudaaharaad ay sameeyaan, waxyaabo badan oo ay sameeyaan ayaa dhici karta. marka taa ma aha wax Soomaaliya u gaar ah, waa wax shacab walba haddii dowladda qalad ay sameyso ama habkii wax loo maamulayo uu dhibaato ku yimaado, ama dhaqaalihii horumarkii maaragtay dhaqaalaha uu istaago, waxaa dhacaysa in shacabkii ay gaajoodaan. marka waxyaabihii ay rabeen markay waayaanna way xumaanayaan. haddii shacabka ay helaan waxyaabahay rabeen oo ay dhargan yihiin, maxaragtay hamiga ay u qabaan inay siyaasadda raacaan way yaraanaysaa. tusaale waxaa taas u ah wadamadan Yurub ee hadda maanta aan joogno. haddaa eegto waxaa arkaysaa marka hore dowladda waxay ka shaqaysaa dhaqaalo badan. waxaa lagu bixiyaa qof walba, guri walba in la fiiriyo in dadku ay dhargan yihiin. taasoo macnaheedu tahay inay heli karaan shaqo. haddii shaqo haysanina inay helaan lacagtii ay cuni lahaayeen. waxaa kaloo la fiiriyaa inay isbitaal waxay ku tagaan inay haystaan.
ma aha in shacabka oo dhan shaqo la-aan lagu ridaayo guriga jiifta oo shaqa waa loo abuuraya, laakiin qofka aan shaqada haysanin waxaa dhici karta inuu xanuunsan yahay ama inuu dhibaato kala haysato. qofka waxaa la siinayaa ilaa iyo aasaaska ahaa, malaayiin lama siinaya, lakin waxaa la siinaya maalin walba inuusan dariiqa ku dhimanin. hadduu yahay qof aan asiga rabin oo nolosha ka dhacay waa gooni. maxay tahay marka sababta waxaa loo sameynaya oo guri walba lacag loo qoondeey la siiyo? maxaa yeelay sida soomaaliya oo kale iyo wadamada africa, haddii shacabku ay gaajoodaan oo dowladdana hoosheeda ay rabto, sharciga qofka inuu dowladda sharcigeeda u raaco waxaa ka horeeya inuu calooshiisa ka fikiro. marka waa in laga fikiraa. marka haddii taa awoodi la waayana waxaa dhicaysa in laisku dhaco. marka soomaaliya dhaqaale xumada ku dhacday ama iskooramaadka iyo waxyaabahan hadda soo waxaa ugu weyn in dhaqaalihii habkii aan u maamulo lahayn inay maaragtay aanan fahamsanayn, iyo dowladnimada waxay tahay oo badigan si qalad ah u fahmnay oo loo baahan yahay, iyo waxyaabaha dowladda laga rabo inay ka fikirto maanta. ama ha lagu qaybsado 4.5 ama 6 ama 7, laakiin waxaa ka horeeya ma fahamsannahay danta laga leeyahay dowladnimada iyo siyaabaha loogu talagalay iyo waxyaabaha loo baahan. adduunyada oo dhan marka waxaa jira hababka ugu wanaagsan ee adduunyada dowladnimada loo shaqeeyo loo maamulo waxay tahay in madaxweyne qof intuu awood yeeshay ama military ha noqdo ama si kale ha u maamulo waddanka oo dhan inuu qabsado, shacabka ka dhaadhiciyo inuu asiga maamuli karo waddanka, ama xoog ha ku maamulo ama siyaabo kale ha kala laaluusho, boqornimo ha sheegto, laakiin awooddii talada waddanka oo dhan inay asiga hoos timaado. marka qofkaan waxaa la dhahaa dictator, qofka dictatorka ah marka wuxuu noqon karaa mid aada u xun oo keliya siduu xukunkiisa keliya siduu ku heli lahaa wax walba sameeya, ama nin qof raba inuu asigii faamilkiisii hawshii wataano ay wax xukumaan. si ay xukumaana marka hore ka fikiraya danta dadweynaha. kaa waa dictator fiican. dictatorka fiican bal marka qaarkood wuu ka fiicnaan karaa kuwa kale dimuqraadiyada, marna wuu xumaan karaa. waxaa keliya uu ku xun yahay waxay tahay awoodda ma raba in lala qaybsado, laakiin wax allaaliyo wixii shacabka ay u baahan yihiin wuu sameeya. waxaa jira nidaam kale oo ah markii dictatorkii iyo dictatoriyadii iyo militarigii yurub iyo meelaha lagu wareeray, waxaa marka jira oo muhiima dimuqraadi. kaas